goortii ay ahayd saacadu 6 maghrib baan waxaan ka soo baxnay guryahayagii oo aad laga xiray meeshaan waa boogaan bogsoonayna maalin kasta soo noqonaysa waa dagaal ma taqaanaa foolxumadiisu ay ka muuqato qof kasto ay ka muuqanayso maanta gaalkacyo waa magaalo madaxda gobolka Mudug waxay ku taalaa bartamaha Soomaaliya waa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ee ay wada degaan beelo Soomaaliyeed oo kala duwan gaalkacyo waxay leedahay muhiimada dhaqaale ayadoo ay ku kala gudbaan badeecadaha ganacsiga ee u kala socda koonfurta bariga waqooyiga Soomaaliya iyo waliba kilinka shanaad ee Itoobiya gaalkacyo iyo waliba guud ahaan gobolka Mudug waxa astaan u noqotay colaado sokeeye colaadahaas oo inta badan ka aloosmi jiray qaybsiga khayraadka dabiiciga sida daaqa iyo biyaha dhaanka isla markaasna u soo gudbi jiray magaalada gaalkacyo sanadkii 1991 magaalada gaalkacyo waxa ka dhacay dagaal aad u baaxad weyn kaasoo sababay khasaare naf iyo maalba leh isla markaasna dadkii deganaa gabi ahaan ay ka barakaceen magaalada colaadan waxay soo afjarantay 1993 kadib markii ay kulan nabdeed iskugu yimaadeen hogaamiyayaasha beelaha wadadega gobolka oo ay hurmud u ahaayeen Cabdullaahi Yuusuf Axmed Maxamed Faarax Haydiid iyo Cali Ismaaciil Cabdigiir ayagoo ku kala seexday heshiis xabad joojin iyo wada noolaansho Bismillahir Rahmanir ولي هشيس كاسي وحنا هشيس كوفي عنو هاي ومدة بدن معنا هشيس كاسي وقارسية إلا دوري 10 سنة هشيس كاسي وهشيس كوفي عن مرة والوجو جاي gaalkacyo waxay u qaybsan tahay laba qaybood qaybta waqooyi oo hoos timaada maamulka Puntland iyo qaybta koonfureed oo hoos timaada maamulka Galmudug inkastoo aysan ka jirin gaalkacyo nabad buuxda haddana intii ka dambeysay 1993 magaaladu waxay samaysay horumar dhinacyo kala duwan leh sida maalgashi dhaqaale ganacsi tirada dadka iyo wixii la mid ah bishii December sanadkii 2015 khilaaf ka dhashay wado laami ah oo laga dhisay qaybo ka mid ah magaalada ayaa sababay inay ka qaraxdo colaad cusub colaadu waxay sababtay khasaare baaxad weyn geeri burbur dhaqaale iyo barakac labada qaybood ee magaalada dagaalkii qubtii qaadiya dhaawicii iyo hubkii baanu ka carariyo tubtii jacad gurigaas guriga nooxigay ku dhacday oo guri halkaasay ku dhacday oo guri kale halkaasay ku dhacday magaalada waxaa ka barakacay qiyaas ahaan 50% dadkii deganaa labada dhinac waxaa istaagay dhammaan hawlihii ka socday labada dhinac ee magaalada waxaa la xiray dhammaan dugsiyadii waxbarashada iyo jaamacadihii isla markaasna waxaa joogsaday dhaqdhaqaaqii ganacsi ee ka socday magaalada mushkiladii dhacday aad bay noo saameysay saameyn weyn baa noogu yeelatay saameyntaas waxaa ka mid ahaa koow dadkii oo kala xirmay dadkii isu socdo kala xirmay labo mushkilo ka timid muxuu ahaa xagga dagaalka oo dad badan oo ka faa'iideystay oo Mooriyaana oo ka faa'iideystay dagaalkaas saddex dadkii oo qaxay dhaqaale burbur xoog leh awood leh oo ku dhacay magaalada ku dhacay hadday tahay muxuu ahaa xaqii muxuu ahaa ganacsigii xageed hadday tahay xaqii dadweynihii hadday tahay xaqii iskuuladii hadday tahay jaamacadihii hadday tahay wax walba waa xirmeen kala xiranka annaga wax alla wixii bari ka soo dega waxa gobolada dhaxataa waxay ahaayeen wax bari ka soo degay ahaayeen annagana waxa qudaarta wadanka aan ku haysano wuxuu nooga yimaada gobolada dhaxay ahaayeen
waa ka helaa labadii qayboodba annagoo ganacsiga isu marina oo qudaarta xaggooyana waxaa soo daaya ganacsatada waxa halkaana waxaa sii daaya ganacsatada raashinka iyo cuntadu waa noo kala dhaafaa laakiin isdhexmarkii bulshada waa go'an waa business centerka meesha ganacsatadu ay ka wada qashto oo labada dhinacba la isku dhafan yahay meesha kaliya aan lagu kala qaxan weeye wali ganacsatadii aad bay u wada shaqeeyaan waxay leeyihiin guddi waxayna go'aansadeen zoonkoodaas in aysan waxba ka dhicin marka wax la kala wareejinayo iyo marka cid lala kulmayo labada dhinacba alaaba meesha la tago waa halkaa suuqa hobyood weeyo astaanka hobyo la yiraahdo iyo cajabti bakhaarayda xukunta waa nabad waxa la isla afgartay inaan xabadi ka dhicin labada dhinac waa isku afgaranay waxaan taaganahay ganacsi iyo nabad iyo isku xir iyo magaalada inaan dajinno waana ku guulaysan waqti badan waa ka shaqeynay qaana waxay u saameysay dawaad arki kartaan waxa la yiri sadar muuqdo waa su'aal madooana Soomaalida kuma mahada waa u jeedaa hantidayadii way waxa halka yaala oo aniga hadda shakhsi ahaan qada boqol iyo $50 lacagta Soomaaliyan bay iga jidhay sidaas ay iga noqotay waxay soo celinayeen hadda lama arko rag oo dhan waa ila wada mid nin walba saas u saameysay inta la tuuray baa ciidan ka badan oo ragga ay saas ka tabaad soo noqotay fara laga qaaday aqal sidaas in si ka daran bay u saameysay oo de dhaqaale kaca oo qofkii de maciishada ku sii kacdo iyo lacagtii saan looga baalgarowday baa badan gaalkacayna waayahan bishan gudaheeda dhan xaalkeeda ma fiicnayn waa u jeedaa suuqii sidoo isaga camilan yahay wax qaata xaalkii dhamaan wax noqday allow sahal ganacsiga waa istaagay waxbarashada waa istaagtay dhaqdhaqaaqi kale waa istaageen xooladadii duunyo maanta wax dhaqaaqayo gaalka dhexdeeda ma jiraan marka waxaan leenahay ilaahay naga fududeeyo ganacsiga hadda waa iska taagan yahay aniga hadda suuqiyaan joognaa wax dhaqdhaqaaq ah oo ka socda oo maanta la leeyahay waa socdaa ma jiraan shacabkii waa barakacay dadkii muslimka waa barakacay waxaan rabnaa nabad anagu ma rabni maamuliyo dawlad is haysata waxaan rabnaa in nabad nagu noolaado gobolkaas gaalkacay si nabad noogu soo dabaali lahaa aad iyo aad baan u rabnaa baalka dhij anaga qudaarta wax naga gata baadaan haysiin gabdhaha qudaarayda dadkii miskiinta ah oo qudaarta naga gadan jiray magaalada deganaasna waa naga qaxay anaga un baa magaaladii cidla iska taagtaagan waxaan la tagnaa ma naqan waxaan ku joognaa ma naqan dagaalkan wuxuu u geystay waxaan xisaabna lahayn kulli magaaladu waa haawanaysaa albaabada in laga baxo oo yaani dadka laga fuqsaday hadda maraysa oo mooryaantu naga faa'iideysato ganacsi iyo hawsheed iyo hurdo iyo xarakaadna bal weerka dhaaf ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inuu naga bixiyo oo beesha caalamka iyo dadka islaamka iyo ummadaha dhan baa bini'aadanka ay noo soo gurmadaan oo wixii wax la gaarsiin karo iyo wixii nabad la taaban karo iyo caalamka dhan uu ogaado oo nimanka taliya kooxayada korka ay ku cayaarhaya nala ka qabto oo binaadku naga soo gaaro hubka iyo madaafiicda iyo waxayna duligeen nala ka qabto dadkii ka barakacay labada dhinac ee magaalada waxay la kulmeen xaalado adag oo iskugu jira gaajo biyo la'aan hoy la'aan cudurro iyo amni darro isbitaalada labada dhinac ee magaalada gaalkacay waxaa buux dhaafay dadkii ku dhaawacmay dagaalka waxaa adkaaday in la maareeyo tirada faraha badan ee dhaawaca goortii ay ahayd saacadu 6 maqrib baanu waxaan ka soo baxnay guryahayagii oo aag laga xirto yaanu aagi ka soo baxnay guryahayagii wali baaqi baanu waxaanu ku nahay meeshan qaxootiga ah oo la yiraahdo halabooqad aad baanu waxaanu u jeclaa guryahayga inaanu ku noqono laakiin dib baa ka sokeeya dagaalkii waa wali socda dhibaatadii waa joogtaa muxuu ahaa markaan hadda ku noqono oo adeeg u doonano magaaladii iyo halkan adeeg ma yaalo waa meel qaxootiye rasaastii iyo wixii oo dhacaya iyo wixii lagu soo hogaaminayay ayaanu haddana dib uga soo cararnay haween baan soo galnay meeshaan subaxiina waan ka soo baxnay jumcadii subaxii baan ka soo baxnay intaas waa soo lugeynay haween baan soo galnay waxaan deganaa meel furun ah oo laba ciidan isku haysato misana ilmaha laguma haysan karo misana hooy nooma noqoto saas darteed aan u soo baxnay meeshaan aan nasiyan ka helnay aan joognaa waxaan ka soo qaxay kaalkacay waxaana u soo qaxay ceelakhwaan walla kulana xabadaha wiiftada waan ka baxsan weyn xoolaan wadanay xoolihiiba meelan kala soo baxna weynay caruurtii haddii gaar noo qaaday xoolahan la soo lugeynay dhib badan baa ilaahay dhib badan nama tusin hadda laakiin dhib way tahay wax soo qaxa dadka qaarkood waxay ku hami dheer yihiin in deegaanada ay ka soo barakaceen lagu celiyo
qaarna meeshaa laga bedelo hooyi cusub loo sameeyo sababtoo ah meeshii maalin baa aadnaa maalinta aadna askar baa meeshoo dhanba deganba meel furina waa meesha ugu geysaysa magaalada gaalkacyo ayaan deganay marka horeba awal horena waa ku nabad qabnay dhibaato ma qabin laakiin hadda meel colaaleed bay noqotay waxaan ka soo qaxnay gaalkacyo wiilkaas bareeleyska waa wataa hantina maanan lahayn dad markumaalaha iska ahayn markumaalkeenana magaalada waa ka nimid wax noo qabtana maana arag haddii badarkii la keenay hay-adaha iyo samafalka ma kala aqaan wax keena masaakiin baas ka nahay waxaan leeyahay dadkaasaa laydinkugu dhiibay dadka markay gaari ka buuxsadaan ba iskala tageen badarkii annaga waa kana bac ma haysano gobol ma haysano wax ku filan ma haysano cunugaas haddaan hadda aan xaabadda nafta waa cunugaas afku mudanayaa intaasoo cunug baan hayaa aabbadood 85 jir baa dhalay wuxuu qaban kara ma laha booqad yimid 1300 oo qoys baa timid dadkaas awal baan deegaanku mashquul lahayn geedana awal baa laga xaalufiyay dadkaas waxay keeneen nadaafad daradii waxay keentay cudur hargab iyo shuban iyo qufac iyo korcuncun bay keentay nadaafad daradii xaaladaas baa hadda hala booqad ku sugan tahay dadku markay maalintoodii dhibku dhaqaalaha ka dhacay dad badan baa meeshan u soo barakacay anagu tusaale ahaan dadka magaalada wax ka degan baa ahaan suuxi gaari baa halkaan keena aroor horaan furi jirnay dadka maalinkii noo yimaada oo maalintan ku xisaabtan dadka deegaanka caadiga ah hadda dadkii kor bay uga kaceen awal haddii ay noo imaan jirto 30 qof 50 qof ugu badnaan hadda waxaa laga yaabaa 200 qof ama 150 qof inay noo yimaadaan وحدي ما تقانا بل انت يمادان او وقت السعودان او دباتو اما دad ku dhinto ama wax ku burburaan waa la arki jiray waa laga kaban jiray balan baa laga suubsan jiray dhoob ma taqana boogtaada ma taqana dhageeysay rajo waxaad ka qabtay inay bugsooto laakiin meeshaan waa boogaan bugsoonayna maalin kasta soo noqonaysa waa dagaal ma taqaana foolxumadiisu ay ka muuqato qof kasto ay ka muuqanayso maanta dagaaladii dhacay oo dhan hadda waxaan maraynaa 400 iyo dado qof oo aanu daaweynay oo ku qalay halkaan dadka sida waa la soo siiyay hospitalka la keenay kaliya ma ahayn sida wax loogu qabto dadka yaa very important isbitaalka qayb kamid ah oo bukaanada jiifan waxa loo raray magaalada meel ka baxsan sida kamid u jirta oo runtii ah meel ay ku qaxeen dadku qaxeen yana isbitaalka geynay qayb ahaan kamid ah oo dadka bukaanada jiifka ahaa iyo sidaas soo aragteenba bukaanada jiifka waxa noocaas ay xagga la geeyay sidoo kale waxa xagga laga qabtaa maadaama magaalada colaad noqotay isbitaalka dhexdiisa waa lagu qaabili waayay wax bukaana marka waxa kale ftay meel u jirta magaalada 8 kilomitir inaan geeyno isbitaalkii dadkuna wax kaas looga faa'iideeyo ilaa haddana runtii waa dhib jiray runtii meel aan lagu tagay marka isbitaal laga dhigaa wax fudud ma aha waxaan danaynaa insha Allah isbitaalka dib joogsanana biyahana xaaladu way degan tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in dagaalku ka istaago magaalada dugsiyada sare dhexe hoose ee al-shacab ee ku yaala koonfurta magaalada gaalkacyo waxaa dhigta arday tiradoodu gaarayso 700 sida dugsiyada kale ee ku yaala waqooyiga gaalkacyo waxaa joogsaday waxbarashadii ka socotay iyada oo dhammaan ardaydii dhiganaysay u barakaceen tuulooyinka iyo xerooyinka barakacayaasha ee ku hareeraysan magaalada gaalkacyo iskuulka waxa ku soo dhacay laba madfac ayaa ku soo dhacday dabaqa qaybta saddexaad ee ku soo dhacday iskuulka nasiib wanaag ardaydu way ka maqnayd laakiin burbur xoogan ayaa meesha ka dhacay kuraastii iyo miisaskii iyo saqafkii iyo wixii oo dhan way burbureen sabuuradihii wixii meesha yaali oo dhan way burbureen dagaalkii maalin hore dhacay ee galabtii masaajidka ayaa waxa ku soo dhacay qori ku soo dhacay waxa ku tukanayay macallimiin ku tukanaysay meesha oo joogtay macallimiinta nasiib wanaag qayb markay tukatay ay baxday macallin iyo arday oo meesha salaada gadaal ka soo gaaray oo dambeeyay ayaa ku dhaawacmeen oo dhaawac fudud soo gaaray garabka iyo garka oo macallinka ka soo gaaray macallin
arday oo fanfoorka ka mid ahaana asagana gacanta wax ka soo gaareen hadeerna way fiican yihiin oo ilaahay waa nabad yeelay dhibka meesha ka dhacay iyo waxa soo gaaray marka la isbarbar dhigo waxa soo gaaray wax yar ilaahayna waa u barwaaqay waa fiican yihiin dhibaatadana markasta oo dagaal dhaco saameynteeda uu nagu yeeshaa iskuulka waa dabaq oo ilaa 3 dabaq ka kooban waxaana moodaa in magaaladan dagaalada ka dhaca aad loo beegsado daaraha dhaadheer marka iskuulkiina wuxuu markasta bartilmaameed u yahay madaafiicda iyo waxa soo dhacay uu bartilmaameed u yahay taasina waa arrin dhibaato leh meeshii mar haddii bah waxbarasho ay joogaan arday ay joogaan oo barimageeda ay joogaan waxaa habbooneed in laga fogaado wax kasta oo dadkaas wax yeeli kara haddaba sidee xal waara loogu heli karaa dhibaatooyinka ka taagan gobolka mudug maxayse yihiin caqabadaha hortaagan nabadda puntland siyaasadeeda hadda ma ahanay markii la dhisayo looma dhisin guud ahaanbaba inay dariska iyo dadka ay xiriirka leeyihiin iyo kuwa dhaqan ay leeyihiin mid inay weerarto gardarsato kuma dhisana inay dal qabsato ujeedadeedu kuma dhisana difaaceedu kuma dhisana inay daris ku xadgudubto kuma dhisana inay waxyeello loo geysato wuxuu ku dhisan yahay kulli inay istifaacdo wixii soo gardaraysa iska difaacdo ayuu ku dhisan yahay marka annagu waxaan jidkeeda haynaa madax siyaasadeed oo siyaasadda ay hogaamiso annagu aanu ka damayno waxaa ku hogaaminaysa waa nabadda isfahanka xal raadinta isafgaradka bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda wax ka yimaada oo dhiba oo naga yimaada aan tirska nahay waxaan anagu ogaanay inaan dagaal xulug ee uu san taray Soomaaliya wiil ka baxan way uu ku soo kordhay Soomaaliya ay ka daashay dagaalku dadku daalan yahay oo dagaalku wadnaha ka qabtay dadku umada Soomaaliya qofkii maqlaa oo Soomaaliya meel kasta uu joogo waa dhibsanaya dagaal baa dhacay dagaal baa jira ayuu leeyahay waxaan rabaa inaan ugu baaqo munaasabadan walaalaheen reer Puntland waxa weeye dadkan waa wada degay walaal weeye cidina guuri mayso galmudugna ma guuraysa iyaguna ma guurayaan marka dhinaca mar walba waxaan ugu baaqayaa dhinaca walaalnimada iyo derisnimada in la eego haddii la ismaagana oo la dayn waayo ay nala soo gardaraystana hadda galmudug gacnaha iyadu is saaran mayso dadku waa inay wax ka bartaan 26 sano la soo dhaafay dagaalada waxa laga dhaafo waa la yaqaanaa resultigeeda dagaalkaani waxaan u maleynaa haddana inuusan xal kama muuqdo wajahad kama muuqdo mana daalin mashruuc uu noqdo lagu shaqaysto oo labada dhinacba nin walba uu waa waray tollaa inta yiraahdo oo qayl dhaansado dadkii marka jaalidaha wax ka codsanayna waxaas inay ka ilbaxaan oo ay danahooda qabsadaan oo aan lagu qaldin waxba loo qabanayaa reer hebel baa soo jiirahayay reer hebel baa weerar waxa ka jiraan sheekada danley baa la yiraahdaa niman danley ayaa wata labada dhinac labada maamulna waxay garan waayeen war haddii shaatiga lagu qabsado oo qof bila aadan kugu qabsado waa inaad shaatigaaga tiraahdo shaatiga kan waa aniga iska leh waa inaad tiraahdaa shaatiga aniga iska leh waxaana ku leeyahay walaalo ila arag ila fiiri ila meeshan hadda anigu leeyahay hadda adigu leedahay ila fiiri umad kale ayaa kula arkayso oo macnaha macquul ah markii kula aragtana de arintaas meel un baa wada dhiga laakiin macnaha dooro biyo ma cabti way cabtaa in la isku laayo ummadan isku layso dhibteeda leedahay habadaas hal la joojiyo qola inta qabsata gaalka ay ku dhaqmi mayso masuuragalna maaha ninka ku taliyana aqli ma leh waa xolo sawiroo dameeroo kale weeye ninka yidhi halkaan anaa ka riixayo u harhaya uma u hari karo inta ilaah ka baqdaan Soomaaliyey ku noqdo ilaahay kitaabkiisii ku noqda gaar ahaan waxaan leeyahay dadka mudug degan oo walaalaha ah oo abtiga ah oo seediga ah oo sodoga ah oo dariska oo reer mudug ah war aqligiina saliimka ah oo Soomaaliya aad ku xoreyseen la soo noqda wax garadkiina imaamadaha iyo shaatiyaasha iyo taajka asaarateen aqligiisa xoorinine
isagii oggolaada inta rabbi ka baqdaan gaalkacyo saatan maahaan ka dhaw gaalkacyo saatan maahaan ka dhaw betlehem ma noqon karo gaalkacyo israa'iilna xagga ka degan tahay ibraahimna xagga ka degan yihiin halkaana balastiinaysa ka degan yihiin